Assalaamu calaykum. Maanta sheeko ayaan idin hayaa. Sheekadan waa sheeko tusaaleyn keliya ah. Beri hore, waddanka Faransiiska waxaa u joogay wiil la yiraahdo Wallonia. Dalka Holland waxaa u joogay wiil lagu magacaabo Flanders. Bilowgii qarnigii 19aad, isbeddello ayaa ka dhacay qaaradda Yurub. Halkaa markii la joogo, wiilkii reer Holland ee Flanders ayaa wuxuu ku yiri wiilkii reer Faransa ee Wallonia, "Saaxiibow, waalidkay waa ka soo guuray, ee ka waran haddaan guri isla kireysano." Walloniana wuu aqbalay. Halkaa waxaa ka dhashay waddanka Belgium. Taas macnaheedu waxay tahay, ama haddii si kale loo dhigo, waa waddan ay iska dhaleen wadamada Faransiiska iyo Holland. Kusoo dhawaada Baro Caalamka, xalqadiisii 14aad, taasoo aan maanta uga hadli doono waddanka Belgium. Balse daawadayaal, intaan wax kale u guda gelin, aan ugu horreyn fiirino sida uu eegyahay calanka waddankaas. Calanka waddanka Belgium wuxuu soo shabahaa midka dalka Jarmalka, kaliya waxay ku kala duwan yihiin qaababka loo sawiray iyo cabbirrada. Kalarka madowga wuxuu u taagan yahay gaashaan iyo dadaal. Kalarka jaalaha wuxuu calaamad u yahay xayawaanka libaaxa iyo deeqsinimo. Kalarka gaduudka ahna wuxuu u taagan yahay geesinimo iyo quwad. Dhulka. Marka hore, waddanka Belgium wuxuu ku yaalaa qaaradda Yurub, waxaana daris la ah wadamada Faransiiska iyo Holland. Dalka Belgium wuxuu ka kooban yahay 3 maamul goboleed. 1. Maamul goboleedka Flanders oo ay degaan dadka ku hadla luqadda Dutch-ka ama Flemish-ka loo yaqaano. 2. Gobolka Wallonia oo ay degaan dadka ku hadla luqadda Faransiiska. Iyo 3. Caasimadda oo ah maamul goboleed gaar ah, halkaas oo looga hadlo isku darka labada luqadood ee Faransiiska iyo Dutch-ka. Inkastoo shacabku ay u badan yihiin isticmaalka luqadda Faransiiska, waxaana caasimadda dalka Belgium lagu magacaabaa Brussels. Intaas waxaa dheer, labada maamul goboleed ee Flanders iyo Wallonia waxaa loo sii kala qaybiyaa midkiiba 5 gobol oo kale oo hoostaga labadan maamul goboleed. Caasimadda iyadu waa maamul goboleed aan gobollo kale loo qaybin. Qaab dhismeedka dhulka. Hay'adda caalamiga ah ee dhawrista iyo maalgelinta deegaanka waxay aad u dhaleeshay shaqada iyo hanaanka dhawrista deegaanka ama bey'ada waddanka Belgium. Sidoo kale, tayada biyaha ee dalka ayaa iyana laga deeriyay, waxaana tan lagu sababeeyay inay keenayso dad badni ama population-ka oo aad u sare kacay. Waddanka Belgium ma aha mid aad ugu tiirsan wax soo saarka beeraha, waxayna taa beddelkeeda ay xoogga saartay kaabayaasha kale ee dhaqaalaha sida qalabka, daawada iyo macdanta oo inta badan laga soo dhoofiyo dalka Congo ee qaaradda Afrika, oo ay Belgium horey u guumeysatay. Waxay sidoo kale Belgium horumar ka samaysay dhanka warshadaha. Dadka. Waddanka Belgium waa sida waddanka caan ku samaysa, waayo ma laha dad asal ahaan loogu tiri karo inay ka soo jeedaan dalkan. Waxaa ku nool dadyow ka kala yimid 2 gobol sidaan horey usoo sheegnayba, oo ku heshiiyey inay qaataan nidaamka federaaliga kana dhigan inay isku awood yihiin dowladda dhexe. Belgium waxaa ku nool qiyaastii dad dhan 11 milyan. Boqolkiiba 57 dadkan waxay ku hadlaan luqadda Dutch-ka, halka boqolkiiba 42 ay ku hadlaan luqadda Faransiiska. Boqolkiiba halka soo haray waxay ku hadlaan afka Jarmalka. Waxaa xasuusid mudan in dadka ku hadla luqadahan aysan ka dhignayn inay yihiin Faransiis ama Dutch, balse ay ka soo jeedi karaan waddan walba oo caalamka ka mid ah. Waddanka Belgium wuxuu markiisii hore ahaa boqortooyo bilaabatay sanadkii 1830, waxayna ilaa maanta leeyihiin boqor aan u labisan sida boqorada kale ee caalamka, balse xirta kaliya dharka suudka. Belgium waxaa ku yaalla xarunta dhexe ee Midowga Yurub, fadhigeeduna yahay caasimadda Brussels. Saaxiibada. Wadamada Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa ah wadamo xiriir dhow la leh Belgium. Markii laga tago dariskeeda Faransiiska iyo dalka Holland, waddanka Congo ayaa ah waddan ay cadaawad badani kala dhaxayso Belgium. Maxaa yeelay si xun ayuu u guumeystay Belgium-ku waddanka Congo, macdan aad u qaali ahna ka aruursaday. Ku dhawaad 1 qarni ayuu guumeysigana socday. Si kastaba ha ahaatee, saaxiibka ugu dhow ee waddanka Belgium uu leeyahay waa dalka Luxembourg. Ha ka dheeraan Baro Caalamka. Waxaa marka xiga ka hadli doonaa waddanka Benin, insha Allah.